hadalladii kaba dambaysta ahaa ee islaantii gabadha yar gaalkacyo qaabka ugu gashay ka warqabteen arinteedii baa la soo gabagabeeyay laba arimood oo aad iyo aad u muhiim ah ummadda Soomaaliyeed inay ogaato la rabo ayaa arinta islaantaas gabadha yarta qaabka u gashay aad ogaydeen ka soo baxaya maxay yihiin baad isweydiinaysaa muuqaalkan kula wadaagaya السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهذا السلام يا جودهان شعب كصومالي هذا ملك السود دنيا هكذا جوكتان ولكن عبد الله مع الحسين ورجينا يا أنو نبض يا عفمات قبنا الربيجان ومركل الدب إنه كل شيء استجي مع هذا الصيغ أو إذا لو سقناته أنت نبنا الله كذا القاضي أنت يسوق توصلت هنا الله وبركاته نبينا عليه الصلاة والسلامنا أنقود السلام أدب أم سنتين والله ليال سيده الرعى برنامج كي جوا كسو أركتين إن سلانتان أدر كيسان وأكتهين لبعض ay geysatay una geysatay gabar yar oo ayadu ay ugu aadneed dibkay u geysatay waa la wada socotaan bani aadan horta damiirkiisu uu damqanayo oo qof muslim ah oo Soomaali ah waliba hooyo ah waalid ah ayaa qof bani aadan ah oo ilmaheeda oo kala ah nooca u gelaysa horta waxa laga yaabaa dad badan oo Soomaaliyeed inay ka dhici waydo laakiin waan goob joog baan u ahayn way dhacday laba fadhi oo kala dambeeyay kadib maxkamadihii waxay ku kala xukumeen labadii maxkamad oo kala dambeeyayba waxay ku kala xukumeen dil toogasho ayaa lagu kala xukumay laakiin waxa la isweydiinayay oo dood ay ka timaaday war ninkuba arinta waxbuu ka ogaayay sababta gabadhana dilka toogashada loogu xukumo ilaa waa qaaday qariye isla hayeen sababta islaantana dil toogasho loogu xukumayo ninkana xabsiga yar iyo lacagta aad aragteen qadarkeedu intuu ahaa loogu xukumayo maxay tahay su'aal ayaa timid horta didibada la soo aastay ma dhaceyso in gabadhana la dilo ninkana banaanka u yimaado ma dhaceysa la yiri horta taas waa arin oo ay soo baxday arinta labaad soo baxday waxa leeyahay dadku baa lagu maaweelinayaa moogi islaanta lama dilayee qof kale ayaa la doonayaa in loo dilo oo ayadii si looga dhigo macna labada arrinba way soo baxayaan hase ahaatee horta hooyadan waa hooyo dhowr iyo 10 caruur dhashay dad badan baa waxay leeyihiin war hooyadani dhibka ay geysatay horta wax sahlan maaha wax qof bani aadan u dhayalsan kara maaha bani aadan nool oo ilmaheeda oo kala ah in ay jirkeeda nooca u jarjarto oo ay u dhibaateyso wax damiirka qofka bani aadamka uu qaadan kara maaha laakiin وفيرس هذاك لكن ما دام قالت كي قشي لكن ده ما دام أيضا لفتر كذا وهويتها نبكي دم بيجينا ياركتي قبلنا أي دمتو هذا ده كله صال أول ما يسي قاب كودي متبه حدي فامل كي قبله أي مكتي قبل أنت قاتان إسلام تعالى السيدة يعرضي دي بلوجسو الحلية كورما سؤاله أي دتكو أنت بدن بريها بالشدة إصلاح وذان هرتو هذا وقتان بري oo talaada ah haduu rabbina gaarsiiyo sida warqada halkan saaran bay idinkaga muuqato aad ku arkaysaan baraha bulshada xalay la soo dhigay waxa la sheegay maamulka Puntland ee Soomaaliya maxkamadda sare ee maamulka Puntland waxa ay soo saareen warqad tirsigeedii iyo waxa halka ay ku wada qorin dhamaan maxkamadda sare ee maamulka Puntland waxa soo gaartay le warqad ka timid xafiiska xeer ilaalinta xafiiska sare xeer ilaalinta maamulka Puntland kaasoo macnaha waxa weeye ku codsanayaan in la fuliyo dilkii toogashada ahayd taasoo dil suga ay ka ahayd hodan maxamuud diiriye marka maxkamaddu way aqbashay codsigii ka yimid xafiiska xeer ilaalinta guud maxkamadda sare way aqbashay Puntland waxayna tiri maxkamaddu waxay amraysaa fulinta dilka hodan maxamuud diiriye taariikhda fulinta dilka toogashadu waa 3 bisha labaad sanada 2026 saacadu marka ay tahay 8 subaxnimo goobta fulinta toogashaduna waa Gaalkacyo halkii hore lagu toogan jiray gacan ku dhiglayaasha ee magaalada Gaalkacyo ayaa lagu toogan doonaa hodan maxamuud diiriye isla markaasina waxaana dilka toogashada fulin doona dhaxalayaasha macnaha dadkii xaq u lahaa inay toogtaan oo ay dishaan waase laga yaabaa geedka markii la geeyo in la yiraahdo gabadhii waan cafinay ayadana iska sug dhowr jeer baa dhacday dad dil toogasho lagu xukumay oo intii geedka tiirka la geeyay macnaha waxa weeye dadkii iska lahaa dadkii xaq u lahaa inay toogtaan ama cafiyaan ama diiq qaataan macnaha waxa weeye ay yiraahdeen anaga cafis buu qofkaas naga yahay waayahay arinta marka la isweydiinayo waxa waaye ninkii maamadan qabay
isaga ma intii yarada lagu xukumay unbuu xukunkiisu ahaanayaa mise waxba iska bedelay taana waa su'aal isweydiin mudan hadda islaantan dilkii baa lagu fulinayaa berri oo talaado ah oo 3 bisha labaada hadduu ilaahay nabad nuu gaarsiin la cafiyana way dhici kartaa oo faamilkii maxay to gabadha xaq u lahaa inay magta qaataan ama ay qofkii dishaan inay cafiyana waa laga yaabaa imisa intay sidan oo kale dad u dhibaateeyeen dhowr sanadood iska jooga ilaahu cadaalad noo keen marka sheekada marka way soo afjarantay berri hadduu ilaahay yiraahdo tiirka ayaa la geen doonaa halkaas ayaana lagu soo afjarayaa kiiskii maxay ahayto hodan maxamuud diiriye oo markaas horey u dishay marxuumad saabiriin gabadhii yareed ee ayadu ay ayayda u ahayd waaya nafteena iyo karaamadeenna annagu aanu lahayn aan ku sii dayno daalimadaas gabadha inay ka disho sida fool u dishay aan dayno daaya reer cabdilawaasow daaya reer cali sambuurow daaya reer warsame aadanow daaya reer mahadow daaya reer farashuwacow daaya cumar maxamuudow arrintaas waxaa la rabaa cawaaqib xumadeeda inay aragto ha taranta hadday rabto oo caruurta waa koraysaa laakiin sumad waxaana ku aan nimankii gabadha toogtay mudug gabar lagama toogin lagamana dilin mudugna xukunkeeda anaga haysano soomaaliya siyaasadeeda bar anagaa ku jira boqortooyada anagaa leh arrintaas kale arrintaas dib ha loogu fiirsado dhaawaceeda iyo geerideeda iyo jiritaankeeda iyo magaceena dib ha loo fiiriyo taasna intaasa kale sharafteena iyo karaamadeenna annagu aanu lahayn aan ku sii dayno daalimadaas gabadha inay ka disho sida fool u dishay aan dayno macnaha dadna saasay leeyihiin oo macnaha waxay leeyihiin aan gabadha sii dayno maadaama ay dhibaato geysatay oo dhibaato xun ay geysatay oo qof bini aadan aanu aqbali karin hase ahaatee maadaama famil ballaaran oo nooca aan nahay oo dad boqortooyo aan nahay yaana la dhihin gabar u qisaastay yaana la dhihine gabadhaasu dhib bay geysatay laakiin magaca xumada ay nagu reebayso ayaa ka wene aan iska sii daano laakiin odayga wuxuu ilowsan yahay xukunka ilaahay subxaana wa tacaala ayuu ilowsan yahay oo ilaahay subxaana wa tacaala way cafin karaan faamilku oo hadda dee waa hooyo 12 caruura leh dembigii ay gashayna qiratay dhibaatadeeduna caddahay wixiina banaanka ay yeelaan qof dumarna ay tahay dee marka horena anigu waa u sheegay waxaa war haddayba qiratay dembigii haddii intii magteeda la qaato la iska sii daayo haddii intii magtii laga qaado la iska sii daayo ama ay ku habboon tahay dee hooyo dilkeedu waxay nagu noqonaysaa arrin kale arrin cajiib ah hooyo tiir inta la geeyey la tooganayo arrin cajiib ah ayay noqonaysaa markii horena arrintan waxaa karkarinayay oo buuqa badan dhaliyey ee dibadbaxayey ee isu soo baxay inkastoo ragna ay ku jireen dumar bay u badnaayeen oo xitaa ku hanjabayay haddii maamulka Puntland ay maamadaas cafiyaan innagana cafinayno dilayno haddaba annaga cafinayno oo dilayno ilaa ay maxkamaddu go'aan ka soo saartana meedka gabadha ayarta lama aasay wixii dhahay dumar bay ahaayeen laakiin markii xukunku soo baxay dilka ah dumarkii meel ay ka baxeen ayaa la waayay waa la kala aamusay dadku way ku kala aragti duwanaadeen dabcan laakiin soo soco saacado kooban baa naga xigay berri oo talaado ah hadduu rabbi raalli ka noqdo in hodan maxamuud diiriye ina xaawo xasan 34 jir ah tiirka in la geeyo saacado kooban ayaa naga harsan wixii dhici doona oo tiirka ka dhici doona ma taariikh baa dhici doonto oo faamilku ma waxay dhihi doonaan maya weligan anaga gabar ma aanan toogan noloma toogan gabadhii cafis bay naga tamay dhihi doonaan maya in adag intay muujiyaan may dhihi doonaan waa qisaastii gabadha nala toogto may dhihi doonaan Allahu a'lam laakiin maxkamaddii sare go'aankii way soo saartay waxa la yiri talaado oo biri ah oo 3 bisha labaad sanad 2026 hodan maxamuud diiriye waa in tiirkii la geeyaa wixii ka soo bixi doonaba waa wada sugeynaa laakiin ummadda Soomaaliyeed dhamaantood dhigta ay kor u wada hayaan go'aanka maxkamadda sare ee maamulka Puntland ay gaartay ama ay soo saartay wixii ka soo bixi lahaa ayaa la wada sugayaa aad baa u mahadsantiin walaalayaal intaan muuqaalada xigay isugu soo laaban doono nabadgelyo wassalaamu calaykum ورحمة الله وبركاته.